arday maanta waxaynu aan ku faraxsanahay inaan sanad cusub inoo furmay inaad dugsigii soo xaadirteen inaan qaadanayno xiisad kamid ah xiisadaheennii weliba tii ugu horeysay inaan qaadanayno arday casharka waan idin dhigi doonaa casharka markaan idin dhigo waad iga daba qoraysaan haddii alla ka dhigo casharka qora dhameeya waxay nagu xigi doonaan layliskii casharku lahaa oo aan idin diri doono يا دميسين arday fiican baa tihiin arday gacan fudud baa tihiin marka waxay nagu xigi doonaan layliskii bay nagu xigi doonaan su'aalo ayaad qoraysaan su'aasha koobaad si fiican baad u aragtaan saburdu weydka qora layliska ka shaqeeya waliba si dhaqsa uga shaqeeya layliska waan idinka sixi doonaa qof baan idin soo mari doonaa saf baan idin soo mari doonaa arday fiican waa dhaqsatay waana dumaysay good su'aashii koobaad tii 15aad tii 16aad waad fiican tahay good student baa tahay aad u fiican tahay maxaa dhacay adigu qaninka caaradiisa umad marmarisay warqadee oo xataa adiga casharka kuma qorneen miyaad huruday xiisada markaan dhigaynay ما soo jeeday su'aalaha markaan marinay baad saaxatay ما seexay adigu caarada qaninka umad marmarisay waxaan u maleynayaa hadaa ciyaar bad adigu meesha u timi ciyaar miiman waxbarashada مساء waxbarasho ugu timid arinkaagu kibir inuu yahay baan u maleynayaa iska hayso hooy madaxay xanuunay markaan wax akhrisaa hooy madaxay xanuunay markaan wax akhriyaa waan dawaqaya salli ala nabi maxaa ku dhacayna teedii hooy afaygu ma jeclaan inaan ku sheegay ma ilba ku dhacday isinka adna soo jaarka islaamad ka waran saxbeelnaygu ma dhicin بسم الله الرحمن الرحيم أنا الشيخ بوكيان صوب ناقم هو الشيخ مش يدعمي هاي ما يشدعمونه ما باري بلوكاغا إيشون ويسكت ساي وين الحسد كادوليا صاحب حسن ما تلاقينه arday waqtigii leedin boodayeen aad imtixaanka shan war soo ajiibteen maanta imtixaankii waan idin qaybin doonaa imtixaanka ayaad geli doontaan waxaad haystaan muddo 2 saacadood si fiican uga fiirsada imtixaanadana ka shaqeeya waxaad imanaysaa 18 bisha sagaalaad waad imanaysaa maalintaas natiijada imtixaanka aan idin qaybin doono haddii alla ka dhigo maanta asooda natiijada imtixaanka muddada badanayuu waa idin diyaar adiga magacaaga baad sheegaysaa saan kuugu baadho imtixaankaagii ibraahim jaamac warfaa arday excellent arday aad u wanaagsan baa tahay dhammaan natiijadaadu aad buu sareysaa adeer adigana magacaaga sheeg asma qalinle haa imtixaankaagu waa dhow gacantaada ku hayaa oo adeer adiga imtixaankaagu aad buu u liitaa maxaa kugu dhacay adigu imtixaanku waa dhacday marka waxaan u baahanahay waalidkaagii inaad igu yeedho soo inta arrin jirtay ma tihid marka imtixaanka dhowrka daqiiqo ugu horeeya xariifnimadaada tanay ahayd waalidkaagii igu yeedho وعليكم السلام واحد هاي مسؤولكي أسمع قليل له ويد ما تكون فلان إن أنت هذا بيوم وسيسي مركها قوليجا إن أنتم يعني وحكوا آخر سنة ميانا تكور إن أنت آخر كذا سيدي قوليجا وحكوا آخر ده أما ما وحبس كده وتهوى سيدي وقت هذه وكل جود يعني وحقين ما يصير عن واقع لكن ما لها دم روح حكا أركاجارس
xagga madax xanuun oo kale iyo waxyaabahaas ay sheegataa mar dhibbiilo loo shiliyo dee cilaashigii si ay tahay baa inagu garanayno inaanta imtixaankii way dhacday adna cilaajadii waad kula soo daashay xanuunkeedina hore igumaad soo sheegin aan wax information hore kama haynin ama macluumaad hore markaa waxaad samaysaa macaan intaan garan si fiican oo yaqaanaa shaarkayga ma jirtay laakiin wiilga guurtay badiyaan daba dib jirad baa noqotay galaaskana waxaa timaadaa xilli dambe marka inanta Facebook iyo aad isticmaasho markaa soo galo markaa waxaa kasakeen gaaraa Facebook soo galaa kadibna waxaa hayada online maalin weyna waxaan markaa imtixaanka diyaarinayay ama wasaarta ku socda iyadoo la soo qosay baxso mageento darsi wanaagsanay si fiican loo gudbisay marka waa diyaar saacadada ardaydu saabirnimo asxaabteedii ugu dhaweyd wax la akhrisanaysa horta way ku tilmaantay sidoo kale xanuunna waa la sheegay laakiin inantaadu ma isticmaashaa moobilada iyo kombiyuutarada in waxaan ma isticmaashaa markay guriga joogto maya ma isticmaasho saani kuma ogi laakiin wiilkaa ka dhawaajiyey inay saaqado tahay inanteeda dayax gacmeedada inay raacdaan waa lagu talagalayba waxaad samaysaa inantaada waad kaxaynaysaa waxaad u geynaysaa anigu waxaan uga shakiyey ciladeeda ay la dhacday imtixaanka inay tahay indhaha wax la xidhiidha taas baan uga shakiyey maadaama madax xanuun aad ku sheegtay markaa jaamacadda la yidhaahdo adal medical university ayaa waxay samaysatay cusbitaal free ama bilaasha aan lacag la iska qaadin dhakhaatiir qiimo lehna ay joogto dhakhaatiir aada u qiimo badan oo indhahayna ay fadhiisato dhakhtarkaasi wuxuu ku yaallaa waddada jarka dhanka bidix inanta waad kaxaynaysaa dhakhtar baad u geynaysaa markaa indhaha oo halkaa fadhiya cusbitaalka adal cusbitaalka waa adal hospital qaybta optometriga anigu waxaan ahay dhakhtar haadi oo ku takhasusay qaybaha kuna takhasusay xanuunaha ku dhaca indhaha soo dhawaada maxaa ka cabanaysaan aniga waxaan ka cabanaya laakiin gabadheeda yar baryaha sahmilaay waxaan ku arkaa waxyaabo badan xanuunka marka waxaan rajeynayaa inaad iyada la xiriirto si ay kugu sheegto xanuunkeeda ma tayar ba marka waxaan xisaysan lahaa madaxa xanuunka waa dawaqaya magacaaga maxaa tiri magacayga asma xagee lagaaga badan yahay markaan waxaa fadhiyaa madaxa xanuunka waa dawaqaya madax xanuun zaid asma xaga soo tuuda iidan mu jeeda kan xagee u jeeda kana markayka uma usajid uma jeed maamo war dhammaantiin ku siiyo gabadhaadu wax shaydaamo iyo jinniye ma qabto tan yar waxay sambuuradda horteeda u fariisan weyda ay gadaal u fariisato oo ay buugta u akhri weydana wax xanuun la yaqaan waana miyoobiya ama aragga gaaban baa la dhaca ma garata marka tan yar haddar waxay u qoraynaa galaas muraayada u qoraynaa muraayadahaasa ka saacidaya madax xanuunkan waxaas dhan xanuunka awootay fahamta marka insha allah markii muraayadaheeda qaadatana sidee dadkeeda la dhaqmaysaa tan xagee u jeedaa sanna jan sanna mu jeedaa waa faytan yahay